hadday tahay markii kugu horeysay aad channelkeena soo booqato waxaan kaa codsanaa maxay ahayd inaad channelka kusoo biirto kadibna subscribe aad saarto aad gambaleelka furato kadib notificationka aad all ka dhigato si ay kuu soo gaaraan dhammaan casharada aan samayn doono. Hi guys, assalaamu calaykum. Waaniga Cabdifataax Ibraahima xaggaad nagala socotaana waxa weeye Somaltech. maanta waxaan ka hadli doonaa cashar kale oo muhiim ah ku saabsan maxay ahayd Windowskeena ama maxay ahayd computerka casharan kaga hadlaynay. casharkan wuxuu ka hadli doonaa qaabka maxay ahayd aad ugu xiran karaysid C drive-kaaga ama HDD-gaaga maxay ahayd hard disk drive-kaaga ugu xiranaysid password. So marka waxaan ku tusayaa qaab fudud oo aad samayn karaysid oo secure ah waxa loo yaqaano BitLocker. So BitLocker wuxuu ku sameynaya maxay in aad ku xirato information-kaaga aad waxay ilaashato marka joogtid Windows-ka aad xirato maxay hard disk drive-kaaga. So marka casharkaasi maanta ku eegnaa iyo qaabka uu shaqeynayo iyo maxay qaabka aad ugu xiranaysid marka maxay aan ka wada faa'iideysana casharka. Okay marka waxaad soo furi doontaa si aad u samaysid casharkan maxay xagga loo yaqaan maxay waxaad soo furi doontaa Windows-kaaga kadibna waxaad ku qori doontaa control-ka. Control panel baa qori doontaa. marka control panel marka qortid waxaa kusoo bixi doonaa shaashadan aad arkaysid kadibna waxaa ka dooranaysaa xagga qoratay system and security. So marka inta dooratid waxa u degi doontaa hoos marka u degtid xagga waxaad ku arki doontaa xagga ku qoran tahay BitLocker drive encryption marka taas baad dooranaysaa oo ku dhufanaysaa. So marka xaggan aad u socotid waxaad arki doontaa macnaha deviceski ama maxay ahayd shayadii aad maxay ahayd aad ku xiri lahayd marka imika tusaale ahaan kale taa ay ku qoran tahay senska d oo BitLocker is on way marka uu furan yahay macnaha way uu ku xiran yahay. marka waxaan tegi doonaa mid saan u sameeyo anadu maxay ahayd sample kale tay igu qoran tahay t oo mid cusub new volume kadib waxaan oranayaa turn on BitLocker. So marka inta dhawo waxa ay soo bixi doona libregayo deetana waxaan ku dhufanayaa xagga tigta waxaan saaraya xagga ka qoonta use password to unlock the drive marka waan ku qori doonaa marka passwordkan doonayaan ku qorayaa let's say example kan u sameeyno waxaan ku qornay maxay passwordkii marka passwordkaad ku qori doontaa iyo passwordka hubinaysa inuu saxsan yahay. waxaan oranaysaa next wuxuu ku yidhi password provided does not meet minimum length requirements. marka wuxuu loo baahan yahay in wax ku doorno aynu baahanahay. let's say nt3 waan kordhinaynaa si maxay ahayd uu inagu qabsan maxay ahayd verificationka. marka waad samaysay maxay ahayd settingska intaad samayn maxay ahayd passwordka markaa sida upgrade waxaa u baahan tahay inaad consider gareyso maxay ahayd optionska xaggan ku yaala. marka waxaa lagu baahan yahay haddii passwordkaaga aad ilowdid waxaa jira recovery password marka recoverygaas waxaad xaggad ku save gareysan karaysaa maxay Microsoft account-kaaga ama Outlook-ga ama Hotmail ku doona noqdo mise waxaad ku save gareysan karaysaa USB flash drive-kaaga mise file ayaad ku samaysan doontaa mise waaba daabacan doontaa. intaas option baa ku yaala oo in my case waxaan dooranayaa oo ugu wacan maxay ahayd flash inaan ku samaysto maadaama oo shayga maxay ahayd ama Microsoft account inaan maxay ku samaysto labadaba waan samaysan karayaa. marka iminka sida ugu waxaan sameynayaa inaan maxay ahayd samaysto flash inaan isticmaalo. marka sidoo kale waxaad samayn karaysaa in aad maxay ahayd file ku samaysato laakiin taa waa laga wacan yahay maadaama oo computerka kaad samaynaysaa uu yahay maxay ahayd aad wax ka qarsanaysa dadka in maxay ahayd aad computerka dhexdiisa ku samaysaa recovery-giina laga wacan yahay. so waxaan dooranayaa flash drive kan dooranayaa. so flashta kayga uu soo saari doonaa yes waa taas. waxaan odhanayaa next. so next markaan idhaaho wuxuu soo saarayaa options kan soo saaraya encrypt use disk space only fast and paste for new PCs and drives. marka waxaan ku degayaa I'm gonna leave everything as default. shakes waxaan ka tegayaa default-kiisa marka waxaan dooranayaa ka maxay ahayd encrypt-ka uu hadda ku taagan yahay. so marka waxaan odhanayaa next baan odhanayaa kadib waxaan sii odhanayaa next. kadib waxaan odhanayaa start encrypting. so marka encryption-kii baa la ii sameynayaa saa arkaysid wuxuu qaadanaya waqti buu qaadanaya haddii imka tusaale ahaan oo kale oo wax badan ku jiraan maxay ahayd diskigaaga ay wax badan ku jiraan
wuxuu qaadanaya waqti badan intuu maxay ahayd uu wada encryption ku sameynayo dhammaan daatada ku jirta oo dhan laakiin waxaan soo qaatay mid volume aan wax badan saas ugu jirin oo fudud marka intii uu casharka dhammaynayo ayay maxay ahayd sugaynaa soo markaa videoga waan yar dhaafin doonaa okay okay so arkaysid waxaan noo dhameeyay maxay ahayd encryption of T is complete marka waxaan eegi doonaa maxay ahayd inaynu odhanayno close baan odhan okay haddaba haddaan aragni qaabkii maxay ahayd loo sameynayay passwordka waxaan eegaynaa haddaba inaan ku apply garayno maxay ahayd tii aan u sameynay okay intaanad u sameyn waxaa jirta xaggan maxay ahayd inaan kutusi lahaa more option baa jirta haddii uu ka aad ilowdo passwordka waayo waxaan soo sameynay recovery waan soo sameysanay kadibna waxaad ku dhufanaysaa xagga haddaad doonaysid recoveryga inaad geliso recovery key baad ku dhufanaysaa deetna waxaad kasoo load garanaysaa haddii iminka aniga flash bay ku jirtaa sababtaas uu soo dhigaya uu leeyahay kasoo load garay flashta okay let's say kadib markaa waad sameyn karaysaa recoveryga okay se waxaan doonayaa inaan ku dhufto maxay xaggan passwordkii baan gelinaya maadaama passwordkii anigu aan garanayo okay so passwordka markaan geliyo waxaan odhanayaa unlock so that's easy marka logii iga furmay waan geli karaya iminka okay so haddii casharkan faa'iido ku noqday oo aad ka faa'iiday waxaan kaa codsanayaa inaad asxaabta la wadaagto sidoo kale annagana support gariso oo like iyo share iyo subscribe inta baad na siiso marka aad u mahadsantiin intaan ku kulmayna casharkan kan la mid ah waa mahadsantii dhammaantiinba